هلا يبقى ومحدا يا ودق لسيدا وباحا الله يلح هلا يبقى ومحدا نلا العقوبة عارنا الله يلح هلا يبقى ومحدا. markii aad aragto muuqaalkani waxaa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya muuqaal laga sii daayay TV-ga dawladda Soomaaliya kaasoo lagu magac daray Dilaaga Waryaha kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa muuqaal propaganda ah. Xasan waxa uu jilaa ka ahaa filim ay waday hay'adda NISA oo waxqabadkeeda lagu buunbuuninayay. waxaa maxbuus cadaalad u xiran isagoo ah lagu wareejiyay magaalada si uu u jiro muuqaalka. waxaa la geeyay meelihii lagu dilay dadka lagu tuhunsanaa oo dhan. isweydii Xasan ma waxa uu u xirnaa dawlad mise Maleeshiya? isweydii waayo cidda awoodda u leh inta qof xiran ay xabsi kala baxdo banaanka ku wareejiso kadibna filimka duubato. waxaa ku cadaanaya eed kasta uu lahaa Xasan Xanafi in uu isaguba ahaa dhibane sharciga lagu dhibaateeyo. filimkan waxa uu ahaa muuqaal lagu marin habaabinayay shacabka Soomaaliyeed waa sida ka muuqata muuqaalkee. abaha iga fajixiye kamid ahaa inuu weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi balse aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay Xasan xabad sigaar beensala isagoo qiiq badan ka deynaya afka iyo sanka. inta uu socday filimkan waxaa ku jiray dadkana la yaabeen Xasan Xanafi oo cabaya ama dhuuqaya sigaar taasoo wariyaha uu ku micneeyay in uu ka dalbaday isaga. isweydii Xasan ma isticmaali waayay sigaarka ka hor barnaamijka amaba kadib? isweydii wariyaha muuqaalka duwayay ma ka qarin waayay bulshada xumaanta shaqsiga miseba ku dhaqmi waayay anshaxi saxaafadda? waxaase la rumaysan yahay in uu ahaa action lagu qurxinaya filimka. waxaase directorka filimka uu ka ilaaway in uu ku soo daro atariisho qayb ka noqota filimka sigaarka qurux loogu raadiyay. ayar oo dacayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geysto jirdil iyo wixii la mida. استلايا بيك تاتي عند ريمن على تدايو اسكتوكو كاتليسو واتتاجي دنيا dad masaakiina oo xabsiga ku jira Soomaaliya oo dulman oo aan dambi lahayn laakiin dambi loo haysto lagu garaaco 24 saac. marka sheeko yar oo waxa jirto habeen dhaweed qalbigayga ku soo dhacday. waxaa tartan loo sameeyay sirdoonka Soomaaliya iyo sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. marka tartan oo waxa ka dhaxeeyay waxaa la yiri daqiiqada loo qabanayaa waxay soo qabanayaan bakeele oo beer lagu deeyay. marka waxaa ku horeeyay bakeelaha waxa lagu dhaxdeynaa beerta qoladii soo qabata saacada loo fiirin. marka qoladii Ingiriiska ugu horeeyay bakeelihii marka lagu sii daayay Ingiriiska waxay ku soo qabteen 20 mirir. Mareykanka ku xigay bakeeliyaha lagu sii dhaxdaayay wuxuu ku soo qabtay 15 mirir. Soomaaliya marka soo hartay bakeeliyaha marka lagu sii daayay halkii Soomaaliya way oroday 10 mirir waxay ku keentay dameer. marka waxaa la yiri waxaa la sugaayay bakeelimo inay keenaan maxaa dhacaya leeyahay waxaan markaas ay weydii wuxuu yahay ninkan markaas dameer kale weydii maxaa tahay markaas yiri bakeela marka dameer ma tiidmaya ma yiri maxaa dhacay war wuxuu yiri say igraacayeen aan bakeela ahayn inaan dhaha ku qasbana. marka nabad sugidda Soomaaliya waxaan leeyahay garaacista u yareeya soo dameeruna bakeela magaysan mana leegaysan doosan dhaneertu waxaan u sheegayaa meeshu saad u moodin ma ahaanay si u taala ila arko عايز أفريقيا ومعسيها ديفيديسا أدي عدو
muuqaalkan waxa uu soo jiitay ra'yiga shacbiga Soomaaliyeed. waxaa kaloo aad iyo aad loogu bartay wariyihii daadihinayay barnaamijka. waxaase shaki badan dhaliyay markii uu wariyaha ka gaabsaday hadallo muhiim ah. waxa uu sidoo kale Xasan Xanafi ka dhawaajiyay inay jireen shirkado taageeri jiray howlgaladii uu madaxa ka ahaa. waxaa kale uu ka dhawaajiyay inay jirtay goob ay geeyin jireen dhaawaca iyo qof shaqsiga u qaabilsanay dhaawaca uu ku sheegay inuu ahaa Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hadda la sheego inuu ku jiro gacanta sirdoonka dalka Soomaaliya. wuxuu shirkado ganacsi iyo shakhsiyaad qurbaha jooga ayaa lacag la siinayay Maxamed Shiro. waxaan la yaabay ma ninka wariyaha ah ee wareysanayay Cabdicasiis Maxamuud Guud Afrika oo aan abtigi ahay oo raggii saxaafadda aan ku soo dhaweeyay ah oo waqtiga ugu badan aan soo wada qaadanay ayay ka hoos baxday oo aan fahmin arinta oo ka hadlay Xasan Xanafi. macaayis dawladda ayaa saaran waxa uu ninkan ganacsiga maalgelinaysa shirkado xamar ku yaalo oo ganacsi ayaa maalgelinay soo ma ahayn inuu weydiiyo shirkadahaas kubay ahaayeen. ma difaacayo Xasan qiilna uma sameynayo mana lahan Xasan goor hore ayaa la xukumay dadka oo dhan ayaana xukunkiisa gaaray markii ay daawadeen video propaganda oo horay looga sii daayay ogaa inuu ka dambeeyay dilka la naxariista Abi Saciid Axmed sanadii 2009 bishii labaad afarteeda oo aan Arbacaha ku beegneed saacaduna ahayd 7:00 duurnimo. marka hadda waqtigan waqti uu cafis dalab badan ma aha. anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiyo oo lagu xukumo dil toogasho si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha ah. Xasan sida muuqata muuqaalo iyo sawirro laga qaaday waqtigii ay maxkamadiisu dhacday oo ahayd 3 bisha Maaj 2016 waxa uu fadhiyay meel gaar ah oo aan cidi ku helin oo aan u malaynayo in ay ku beegneed wajahada miiska ay fadhiyeen askartii dacwadda qaadaysay. waxaa kale oo goobta joogay oo dhinac taagnaa koox warbaahinta ka socotay. warbaahintu ma sheegin in ay goobta maxkamaddu joogeen ehelada ninka la xukumay amaba cid sharci ahaan difaacaysay eedaha loo haysto.
waxaase lisweydiinayaa xasan xanafi ma awooday in uu yiraahdo filim ma jilaayo oo ma tagayo goobihii dadka lagu dilay waa maya ma jirtay cid uu uga dacwoon karay oo dhageysanaysay codkiisa hay-adda nisa iyo baadilka ay ku samaysay waa maya isweydiiye maxaa isku beegay barnaamijka laga duubay xasan waxyar ka hor iyo xukunkiisa macnaha waxa uu noqonayaa qof kasta oo la dilayo inta aan la xukumin ka hor waa in ay nisa ay ka samaysato sida ay doonto si loo qaldo ra'yiga guud ee shacbiga waxaa xusid mudan lana dafiri karin waxqabadka iyo hanaanka sirdoonka dalka Soomaaliya ee magacooda markii la soo gaabay loo yaqaan nisa ee hore u kacay waxaan ku qanacsanayn hanaanka cadaaladeed ee dalkeena ka jira maanta qofkii xukun ay askari goose ku qanacsan kulli isaga ayaa cirka roob ku og rumaysa ama rumaysan muuqaalkan kumanaanka shacabka Soomaaliyeed daawatay ama dhageysteen waxay bogaadin u direen waxqabadka sirdoonka dalka ee magacooda markii la soo gaabay loo yaqaan nisa waxayse daliil aad iyo aad u far badan u jeedinayaan riwaayadaha garab socda waxqabadka sirdoonka dalka يا واديدين وترتادن ومانتين تبقى ديغا يبقى هشيو يبقى نسو لكالا هايو ازاي يا هرانك waxaa ku hakinayaa